أدو سو جيدي يا ما أنا سو جيدي يلا صور وين صور صوت طالع هنا شغله odayaashu ajendaaynu gudagelaynaa ajendaha la gelaya fadlan hala fadhiisto tirada hala sugo tirada mudanayaasha hala sugo idan iyo shan mudane baa fadhiya waanu gudagelaynaa arrintii aynu u ballansanay maanta oo ahayd inaan golaha ku soo celinno doodii wax ka beddelkii iyo kaabistii xeer number 37 ee ku saabsanayd laguna kaabay diiwaangelinta muwaadinka waxaan jecelahay in marka hore ay xoghayntu u qaybiso mudanayaasha minitiskii iyo soo ururintii minitiska waxaa kaloo sidii mudanayaashu soo jeediyeen lala akhriyey xeerkan ama soo jeedi kaabistaas xeerarkii ka horreeyey ee ka mid ahaa xeerka diiwaangelinta iyo lifaaqyadiisu xeerka jinsiyadda dhammaantood xeerarkaana nuqula looga sameeyey mudanayaasha marka waxaan jecelahay in loo qaybiyo intaanan go-aan ka akhrin لحدن يلح مضناء باجوغا وجعلها هنا سو كوبنو doodii mudanayaasha aqlabiyaddoodii waxaa ka soo baxay in doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada mar la wada qabto in doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada mar la wada qabto in xeerka lala akhriyo lana waafajiyo xeerarkii ka horreeyey sida xeer number 372007 iyo lifaaqyadiisa xeerka jinsiyadda xeerka gobollada iyo degmooyinka lana waafajiyo kaabista iyo wax ka beddelka in goobaha diiwaangelinta la waafajiyo xeerka diiwaangelinta xeer number 37 lagana dhigo doob kasta codbixineed waxay noqonaysaa goob diiwaangelineed codbixiyayaasha in xeerka lagu daro indhaha laga qaado qofka isdiiwaangelinaya si loo helo diiwaangelin lagu kalsoon yahay oo codbixiyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo komishanka hore u tijaabiyey habkan kuna guuleystay in macluumaadka diiwaangelinta muwaadinka la kaydinayo ay ka mid noqdaan xaaladiisa guur hadduu xaas yahay haddii kale iyo warqadda qoyska family sheet in qodobka ka dhashay heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda
madaxweynuhu soo gudbiyay golaha xeerka lagu daro in marka la sugayo muwaadiniinta qofka muwaadinka haddii aanu joogin caaqil ay cadeeyaan mas'uuliyiin sida xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo baarlamaankaba suldaan madaxa tuulada ama heer tuule imaam masaajid iyo mas'uuliyiinta kale ee cadeyn kara arrintaas in qodobka soo jeedinta guddiga arrimaha gudaha sida loo qaato in kaabista wax ka beddelka xeerkani aan ahayn xeer cusub balse uu yahay wax ka beddel lagu sameeyay xeer number 37 iyo ku kaabista diiwaangelinta muwaadinka waxa ka hortay halkaas waxa ka dhashay halkaas laba arrimood codbak waxa ka dhashay arrinkaas hadhameeyo waxa ka dhashay laba arrimood oo ka soo baxay natiijadaas markaanu eegnay doodii xildhibaanada oo ah in doorashooyinka mar la wada qabto taasoo aynu ku soo saari doono go'aan gole ama parliamentary resolution maadaama sidii xildhibaanadu ku doodeen loo baahan yahay inaynu dedejinno xeerkan inaynu ansixinno wax ka beddelka iyo kaabista xeerka number 37 laguna kaabay diiwaangelinta muwaadinka iyo soo jeedimaha xildhibaanada waxaan jecelahay inaanu resolutionkii draftkiisii idiin akhrino goluhuna u codeeyo kadib iyadoo la eegayo dastuurka jamhuuriyadda somaliland qodobkiisa 7 afartanaad 83 oo ka hadlaya doorashooyinka madaxtooyada golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada markuu arkay xeerka doorashada madaxtooyada xeer number 2002 markuu dhageystay khudbadii madaxweynaha ee uu ku sheegay in doorashooyinka mar la wada qabanayo iyadoo dhiigbaxa dadka ku dhaca loo turayo markuu tixgeliyay soo jeedimaha mudanayaasha ee ku saabsanayd in labada doorasho ta wakiilada iyo ta madaxtooyada mar la wada qabto markuu yaqiinsaday in bulshada caalamku diyaar u tahay inay gacan inaga siiso doorashooyinka madaxtooyada iyo ta wakiiladaba markay u caddaatay in miisaaniyadda 2015 lagu daray labada doorashaba markuu arkay go'aankii muddo kordhinta guurtida ee ku sababeeyay muddo kordhinta in laba doorasho madaxtooyada iyo wakiilada mar la wada qabto golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland wuxuu go'aamiyay in hal mar la wada qabto waqtigooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland iyo golaha wakiilada isagoo goluhu tixgelinaya hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somaliland iyo rabitaanka shacbiga in goluhu qabyo tiro dhammaan wixii xeerar ah ee loo baahan yahay doorashada ka hor go'aanka gole mudanayaasha ogol gacanta taagan gacanta la dejiyo mudanayaasha diidan go'aanka golaha resolutionka gacanta taagan iyo lifaaqiyadiisa gacanta taagan mudanayaasha aamusan gacanta taageen waa ku dhawaaqayaa natiijada in mar la wada qabto
go'aanka golaha ayaa in mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo doorashada golaha wakiilada waxa uu codeeyay 64 mudane hal mudane aamusay gudoomiye muu codaynin sidaas uu ku ansaxay go'aanka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama waqtigii doorashada uu dhow yahay doodiina dhamaatay waxaan soo jeedinaynaa in wax ka beddelka iyo kaabista xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha goluhu u codeeyo oo ansixiyo mudanayaasha oo gol inaynu ansixino kaabista iyo wax ka beddelka xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha gacanta ha taageen gacanta iyo lifaaqyadiisa gacanta ha taageen hal mudane uu ka aamusay gudoomiye muu codaynin wax ka beddelka iyo kaabista xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha ku ansaxay mudanayaasha waxaan ku wargelinaynaa in golahu uu galay fasax 6 wiiga uuna soo noqon doono 6 Noofambar kala fadhigiina saas u